sidii loo doonayay mar iyo laba iyo saddex ayaad ka soo muuqatay xagga siyaasadda bal waxay ku qabsoomay faahfaahin waa mahadsantahay Mucaawiya sidaas kusoo magacayda waxaa weeyaan Dr. Aadan Kaynaan xildhibaanka laga soo doortay degmada Eldaas waqti horena waxaan ka ahaan jiray xildhibaan degmada galbeedka Wajeer markuu hore doorasho istaagay waxa ay sanad markuu ahaa 1992 anigoo wali arday ah laakiin ima suurtagelin dhaxda baan ku dhaafay markii labaad oo ka soo istaagay waxa ay ahayd sanad markuu ahaa 1997 Wajeer West baan ka noqday xildhibaan oo xisbiga waqti ku soo mucaarad ayo Safina saddexdeed siyaasad baan ku dhex jiray Wajeer West Eldaas ma sha Allah markuu dambeyntii sanadkii 2012 marka la kala gooy laba qaybood loo kala qaybiyay Wajeer iyo Wajeer West ana qaybta Eldaas baan ka istaagay waa markii saddexaad waka waatay aad ma santahay mudane waxaa jiro abaaro ba'an inay ka jiraan gobolka Waqooyi Bari qaas ahaan ismaamulka Wajeer waxaa inta badan dadka yihiin xoolo dhaqato saameyn ballaaran ay ku yeelataa bulshada qaybaheeda kala duwan maxaa ku qorshaysan inaad wax ka qabato iyadoo loo gahay xoolo dhaqato badan inay ka tageen ismaamulkaaga oo ay u gudbeen ismaamulada dadka dariska la ah runtii sidaas ka warhaysiin abaar xun baa ka jirta halka xilligii roobka oo ahaan jiray bisha afraad bisha shanaad sanadkan ma dhicin sanadka horena wuu liidanay marka tii waxay keentay wax oo isdaba mar ah saacada waqtiga hadda la joogo waa waqtiga la filayay roobka inuu dhamaaday dhulkii uu yahay cuudule barwaaqo ay tahay dadkii ay inkastoo waqti jilaal lagu jiro caadiga waxaan jirtay inay abaar jiri jireen waqtigan marka hadda tii waxay keentay meesha tan liga soo doortay Eldaas run ahaantii qaybta ugu xun inay tahay hadda qaybaya dadka xoolo dhaqatada way guureen qayb kamid ah waxay galeen countiga oo jiraanka oo Marsabit kuwa kale waxay aadeen Isiolo kuwa kale waxay aadeen Ethiopia ama hatta aan Soomaaliya anda taana waxa keentay meeshii biila cuud malaha meeshii xoolaha ay cuud ka heli karaan malaha biyo marka tii dhibaato badan baa ka jirta meelin tagay runtii dhibaato badan baa ummadda haysata dawladda countiga qayb badan baa ka geysatay ceelal cusub ay qoday dadka dhibaataysnaay waxay u geeyeen raashin laakiin taa dawladda countiga kala ma suubin karta marka taa maanta uu oranaya madaxweynaha wadanka inuu arka arrin dhibaato ah oo wadanka dhan countiga dhan haysa hadda wadanka qayb ka badan haysa inuu baaq u hagaajiyo adduun weynaha si arrintan loo garta arrin dhib ah taa kadibna kaalmo loogu heli kara oo wadamaha dibadda oo saaxiibayalka ama shirkadaha dawladda waxaana filayaa in waqtigan wasaaradaha arrimaha ku xisaabsanayo wasaaradda la dhaha devolution iyo wasaaradda beeraha iyo xoolaha inay u soo imaadaan oo ila xiriiraan dawladda countiga say u arkaan dhibaatada hadda meesha ka jirta marka mid oo yani hadalka lix u baahan ma waa dhib badan waa dhib weyn waxaana filayaa dadka hadaan la soo gaarin inay keeni doonto dhibaato weyn oo xoolihii iyo dadkaba dib u keensata aad ma santahay goorsii horeysay madaxda laga soo doortay waqooyiga dalka amaba Northern Kenya waxa ay ku dhawaaqeen in xoolo dhaqatadan u badan inay xisbi samaysan doonaan xilli lagu sugnaa ismaamulka Gaarisa xisbigaasi ay ku dhawaaqeen xoolo dhaqatada waqooyiga dalka inay samaysan doonaan maxaa faa'iido ah oo ugu jirta gobolka Waqooyi Bari oo kamid ah gobolada xoolo dhaqatada iyo beeralaydu ay aad ugu badan tahay run ahaantii waa fikrad shakhsiyan bay ahayd mar aan fadhiisanay oon xisbi xoolo dhaqatada hagaajinayna ma jirto laakiin wax kale oo ka hadalna waxa weeyaan dana waxa jira oo qaas ah dadka xoolo dhaqatada tan hadda ka hadlayna dhibaato baa haysa xooli dhibaato baa haysa degmooyin dhibaato haysa marka dani anaka noo qaaska waxaan uga hadli karnaa annakoo iskaalmayno annakoo qabna platform looga hadli karo annakoo fahansan marka tii waxay keentay inaan hagaajina guddi la dhaha Pastoralist Parliamentary Forum
كان وجري جري وقت هره ما حزب سياسات لكن هو حزبي أو لا sectoral interest معناه هو ضد اسكو دبعته قبان اسكو سيدو ماشي laga soo doortay isku markii barnaamijkooda waxay arkaa xisbi aan laakiin uma arka way wadankan waa wadan dimuqraasi ah xisbiyaal badan baa jiraan waxa wanaagsan annakoo danihii ama dhibaatadii xoolo dhaqatada ama danihii baan dhaha ku xoojina xisbiyaalka dhexdooda oo loo arkin dad kaligood dhinac u socdo mana dhici karta marka wadanku waa wadan guud xisbiyaal badan la leh siyaasad badan ay ka jirta marka aniga fikradeyda waa shakhsiyan kama hor imaadsani laakiin inay danta annaka ku jirto ma maleeyna inaan banaan istaagno oo dhaha xisbi xoolo dhaqatada kala xaniisay waxaan leenahay guddi u istaagan danti xoolo dhaqatada iyo inuu noo jiro waqti kastaba taana waxay keenaysaa wax ka reebis malaha xisbigaas kala ku jiri kartaa kan kala ku jiri kartaa laakiin marka imaada adduun weynaha hadda kulay baa ka warhaysa adiga waxa taan inuu wargeysa waxa jira wax la dhahaa lobbyism in fact maanta hadaa tagtid wadamaha hormaray kooska jaamacadda ugu wanaagsan waa kooska la dhahaa lobbyism degree waayo waa jack of all trades fursad kasta oo leedahay inaad qof kasta la hadashid dan kasta aad kala hadashid meel kasta aad dani asu tagto marka waxa inaan noo furaysaa inaan u bedelna Pastoral Parliamentary Forum mid oo lobby group ah oo ka shaqeeya danihii dadka xoolo dhaqatada oo across the board ama Rift Valley ama Western meel aad ka yimaado xoolo dhaqatada markii uma fikiri karna aan xisbi siyaasi ka dhigno waayo siyaasada imaada waxa soo galaysaa waxa la dhahaa policy differences national politics arrimo ku xisaabsan qoyska waxyaalo badan aad soo galay marka taa sida ay u jiri jirtay aan ka hadalno danihii xoolo dhaqatada wadanka meel kasta ka joogaan aad u maasan tahay ismaamulkan gobolka waqooyi bari inta badan waxbarashada aad ayuu uga hooseeyaa taniyo markii uu gumeystaha Ingiriiska uu ka qaatay xornimada qaas ahaan ismaamulka Wajeer waxa ka jiro macallin yari amaba macallimiintii oo ku yar deegaanada ismaamulka Wajeer saameyntii laga ku yeelatay macallinyarada ismaamulka Wajeer haysato xagga waxbarashada maxaana laga qaban karaa sideen xal loogu heli karaa macallinyarada iyadoo loo ogyahay ardayda wax ka barata gobolka waqooyi bari inaysan isku taxaluujinin barashada macallinimada ama ku biirista jaamacadaha iyo koolajyada laga barto macallinimada runaantii dhibaatada tacliinta haysata Wajeer ama gobolaha kale oo kamid ka ahaan jiray NFD waa mid annaka aan hagaajinayn hadda tu hore ajiri jirtay oo historical stereotypes macnaha fikrad xun baa laga qabi jiray inuu ardayda gobolkan ka imaadaan ay iskuul akhrisan karin amaba fursadaba lama siinin laakiin hadda wuxuu isku dhamaatay wadankan waxa ka jira dastuur oo nin kastaba inuu tacliin helo marka waxa uu soo imaaday hadda dadkii Soomaalida gobolkan ka imaadeen oo iskuulka akhrista ama iskuul gala ma rabaan macallimiinta waa qayb dibka ugu horeeya kuwa macallimada tagaan waxay rabaan macallimada inay u isticmaalaan fursad kale ay ku raadsadaan marka su'aashu waxa waaye ardayda yaa bari su'aashu waxa waaye macallimadii yaa ka shaqeeyni waa dib tan kala madaxdii laga soo doortay dad badan oo macallimiin ah yaa shaqadoodii macallimada laga saaray oo wasaaradda kale la ama meel kale la geeyay tan waxaan arkay inay tacliinta ay dib u dhigtay tan kale saddexaad waxa jira wax oo aan arkay hadda policy discord oo dawladda guud ay hadda wada ama aan dhaha fikrad kala duwan baa hadda soo baxday waayo dastuurka hadda wadanka ka jira hadaas fiirisid section 55 section 50 يعني dastuurka hadda jira oo hadda wadankan lagu xukumo affirmative action wax oo adil lagu siinaya ma waa mid oo dastuurka kamid ah marka qofkii inuu istaagay dhahay qayb wadanka kamid ah uma baahno in loo hagaajiyo policies oo dadka kala ka daba keeni karta waxaan arkaa ay ka sharciga ma fahansana marka taa waxay keentay dhibaato fara badan dhalinyaro fara badan oo tageen iskuulihii ama kolejii macallimiintii yaa muddo badan markay soo begi lahaayeen mar kale dib loo celi waa mid aan ka xunna waa mid aan hadda ku jirno ilaa maxkamad baan tagnay waxaana filaynaa waqti dhow inay heshiis wala siyaasi loo heli doono arrintaas ay ku dhamaata waayo ma dhici karta lama dhihi karo wadankan inuu isku sidoo wala noqdo adduunka dhan kama meel ka jirto America ma hadda tagtid policy-ga lagu hagaajiyo qolada la Red Indians amaba new immigrants way ka duwanta dadkii hore oo wadankaas sii deganay meel kasta way ka jirtaa policy-gaas
marka waa policy oo ka daba keenna anaga sharcigan dastuurka hadda wadanka jira markaan qorayni waxaan hagaajinay wax la dhahaa equalization dastuurka baan gelinay oo arkaysaa qayb kale kamid ah waxaa hadda laga hadlayaa gender equity and gender parity macnaha jinsiyaga oo wadankan waa in dastuurka uu ogolaada wax oo yani qolo kastaba ay ku helayso xaqeeda marka tiida indhaha laga ma qabsan karo lama dhihi karo wadanka qaybtan wadanka kamid ah tacliinta dib ay ka joogaan waxa loo qaban karaa amaba wadanka dhan isku sidoo tacliinta weyn oo hel ma waxa la su'aalo badan baa ka jira kuwa waxay u baahan doonaan sharci kuwa fikrad bedel bay u baahan doonaan kuwa inaan loo bigareyn ay u baahan doonaan kuwa waxay u baahnaan doonaan dhaqaale badan in la geliyo kuwa waxay u baahan inaan anaka fadhiisano waayo halkan dad badan baa iskuul tageen how comes macallimiintii waa looga cararaya and this is supposed to be the most noble profession marka waxyaalaha anaga inaan isweydiino waaye oo community ahaan aan uga hadalna tuna aan county government aan ku fulin kuna aan ku fulin national government tan kalena image-kii oo adduun weynaha inay tacliin tahay universal right macnaha universal right wax oo xaq ah oo arday kasta oo iskuul gaari oo xaq u leeyahay iskuul taga marka qaybiyuka ay ku di waan fiirinaynaa sida ugu wanaagsan oo u bixi karan aad u maasantahay mudane baasaboorka dadka Kenyanka helaan inta badan xilliyada xajka uu soo dhooyay oo haatanba uu fooday inuu soo hayo culays baan ayaa ka jira xagga helidda baasaboorka amaba viisaha inta badan Soomaalida gobolka waqooyi bari waa lagu dhibaa sida loogu fududeyn lahaa inay soo gutaan xajka xagga baasaboorka arintaasi maxaa idinkaga qabsoomi doona ama muxuu yahay qorshihiina xiga inaad tilaabo ka qaadaan si aan loogu dhibin dadka gobolka waqooyi bari iyo guud ahaanba muslimiinta dalka oo jecel inay waajibaadka xajka iyo umrada ay soo gutaan xilliga ay doonayaan inay xagga iyo Sacuudiga u dhoofaan horta bixitaanka amaba aan dhaha passportka bixintiisa laba wajiib ay leedahay waji waa xaq qofka wadaniga inuu hela qardaastas passportkaas uu ku safri karo oo meeshii raba ku aadi karo tan kalena waxa qayb labaad waxa ay nabadgelyada wadanka marka labadii waa inay ka jira balance waqtiga hadda jira dhibaato badan oo nabadgelyada ku xisaabsan baa jiraan waa ogsoontiin wadanka nabadgelyadiisi waa in la ilaaliyo xaqii dadkii passportka rabeen waa in la ilaaliyo labadii waxa uu soo keeni kara ninkii shaqadaas ku shaqalay qofkaas waxa weeyaan qofkii nabadgelyadu ku shaqale iyo odayaasha kala iyo mas'uuliyiinta kala marka waxaan riixaynaa maan dhow waan ka hadlay arintaas in la fududeeyo dadka Kenyanka oo muslimiinta ah nooc kasta passportka yani ku tiragalay inay isticmaalaan in la fududeeyo sidii passportka lagu siin lahaa dadkeenina waxaan faraynaa wixii nabadgelyada wadanka hor imaadaya inaan ka fogaano way ogsoontiin hadda challenge badan baa jira oo waliba dadka muslimiinta qaasanta oo ah qabiilku ma dhisnataa marka waa inaan ilaalino labada si isku keen lahay dawladana waxaan hadda qasab ugu dhigi doonaa ilaahay diira inay ka furto xafiisyaha passportka lagu bixiyo Wajeer Mandera Garissa meel xaqana ka waay meel badan baa laga furay soo waxaan leenahay meelaha fag ninka hadda ka soo tagay Mandera oo socdo Nairobi oo inuu soo safra inta soo kilometer soo 100 kilometer ninka Wajeer ka tagay waa inta soo 700 kilometer Nairobi kan Garissa waa ilaa 400 kilometer marka waxaan leenahay dawladda service delivery waxay kamid ah waxyaalaha soo kale in dadkii meeshii deganayeen loo geeyo oo dadka nabadgelyada ku xisaabsanayna ay kana shaqadooda qabsadaan dadweynahana ninka xaq u leh passportka inuu helo sida lagu siiyo marba mid aan ogolaanayna malaha dastuurka cusubna kama dhici karta wax oo fiirsi ama faralabax oo dadka muslimiinta ah nuucay ka noqdaanba kaligood lagu soo biyo mana ogolaanayna wadankaana hadda waqtigu hadda la joogo ma dhici karta qofkii ku fikiray taana asaga baa iska daali doona iska dhaafi doona koronto laan ayaa muddo ka soo jirtay ismaamulka Wajeer iyadoo xal aanan waarin loo helin xagga korontada bal arintaasi haddii aad faahfaahin naga siiso county-ga guud sidee loogu heli doonaa ama ay uga bixi doontaa koronto laanta sida ismaamulka Garissa oo ay uga baxday iyadoo madaxweyne ku-xigeenka dalka uuna horay u ballan qaaday in koronto laanta baan ay ka jirto ismaamulka Wajeer laga bixi doono runtii arinta waa arin jirto ilaa hadda jirto oo magaalada Wajeer ka jirta dib koronto la'aan ay ka jirta waa mid aan arkahayna laba nooc waaye marka mid waxaan u baahanaa an extension of a national service macnaha waxa weeyaan national grid-ki oo ku dhisneen generator wuxuu soo gaaray hadda Garissa iyo magaalada kale la dhahaa Garbatula
marka midda aan dawladda kala hadalnay oo meel kastaba aan ku loo begreenay waxa weeye in line-kaas la soo dheereeyo uu soo gaaro Wajeer Mandera ama ka imaaday Isiolo ama meel kale ka imaaday ilaa Moyale la gaarsiiyay hadda tan ka jirta Wajeer run ahaantii waa mid aan ka xunnahay ku ceebaysana madaxdii hadaan ahnay muddo dheer baan ka hadalnay meel dheer baan geynay baarlamaankan geynay shaqo socota lagu leh waxaan filayaa yani wax oo ku suga oo kale inay ka dhici doonaan laakiin uu muhiimka waxa waaye waa inaan helno line-ka oo national grid-ka oo ku dhisan wax ka baxsan generator-ga yani other sources of energy marka taana waxaan filaynaa lobbyga hadda aan wadna inuu imaadi doono MOU baana la tusay agreement aan la dhahay dad badan baan la kulannay xafiis kasta aan tagnay haddana haddii sidaan ku sii socoto madaxweynahan appointment la raadsanaynaa ilaa hadduu yidhaa si arrintan oo koronto la'aanta Wajeer ay ku dhammaata maxay hadda sidaan dadkii beecsharadii ardayda iskuulkii hospitaalii wax kastaba koronto haday jireen wax shaqayn kara malaha halkaan waa meel kulul marka taa waan ku dhex jirnaa reer Wajeerna waxaan leenahay naga raali hada waan ogsoonahay arrintaas waa arrin muddo soo socotay waxaana filaynaa insha Allah waqti dhow inaan u heli doono jid oo rasmi ah inay arrinta koronto la'aanta ay ku dhamaato Wajeer asante mudan ugu dambeyn labada su'aal ugu dambeysay mid waxay tahay madaxda ismaamulka Wajeer baraha bulshada toddobaadyadani waxa ay qabsatay in isku soo dhawaansho laga arkayo barzaabkii hore ismaamulka Wajeer iyo barzaabka hadda xilka hayo ayaa waxa baraha bulshada lagu arkay ama social media-ga iyaga oo gacantiis gelinayo halka uu ku soo daawacay Governor Maxamed Cabdi Maxamuud bariisa bulshada arrintaas sidee u aragtaa adiga bal faahfaahin intaad inaga siiso qodobkaasna su'aal wanaagsan way taa waana yaabi lahay haddaas weydiinin galabta runtii in loo siima siyaasaddu waqti bay leedahay waa wax time bound yani macnaha waqti baa looga talagalay dadka annaka Soomaalida hadaan ahnay marka fiirisid fikradeena iyo dastuurka dimuqraasiyada wax bay ku kala duwan yihiin waxa soo gala qoys waxa soo gala nin jeclaysi waxa soo gala arrimo kale waa ogsoonta uma xasuus leedahay waqti hadda laga joogo sanad yaan soo daabacay inay dadka Wajeer madaxda u soo imaadaan nin kasta oo taagnay nin baa la taagnay qof baa ila taagnay Governor qof kale la dhaafa jidadka dheer oo soo marayni runtii dad baa waqtigeeda ka careysnay waayo arrimo baa jiray maxkamad nin kasta fikrad buu lahay meel buu ku hirinay maxkamadii way dhamaadeen wax kaliya oo haraad waxa weyn loo soo imaado yani waxa la dhahay reality check waa pragmatism marka soo dhaweynayna waa la soo dhaweynay loo soo imaado taa kama reebaysa ruuxo inuu fushada fikradiisa iyo dimuqraasiga macnaha waxaan leenahay aniga fikradeyda waxa weeyaan doorasho waqti bay lahayd way dhamaatay waxa lagu jiraa waqtigii reer Wajeer aan u shaqayn lahayn waxa lagu jiraa waqti laga hadlayo unity of purpose waxa jira abaar waxa soo socda xisaab waxa jira wadanka national debate baa ka socda runtii waa maanta waqtigii madaxda regionka dhan ay u sii maadi lahaayeen oo ka hadlaayeen wardanihii guud oo gobolka aan ka hadalna ana fulin waayo waqti adag baa lagu jiraa hadda rag baa meel fadhiistay waxay hagaajinayaan building bridges dastuurka wadanka ay ka hadlayaan anaga waxaan mashquul ku nahay hebel kana kaasa dad baa meel fadhiya waxa laga hadlayaa wadanka dhaqaalihiisa lagu qaybsan lahayd formula-gii aan gelinay oo revenue allocation authority commission kan u hagaajinay waa la bedelay hadda wax iskaga imaadiyo la isweydiiyay mala sanadka daa fiirisid dhaqaalaha lacagta loo soo saari Wajeer way ka yartaa tii sanadka hore tii gaar sidaas tii Mandera asaas kale waxa keenaysa marka policy discord ani waxaan dheelahay arrimahaas mar hore inay dhacaan wanaagsaneed haddana waqtigaas ilaahay u qoray bay dhacday allu si imaada ku kala ka maqnaa imaadeena Wajeernimo aan u shaqeyna noodistanimo aan u shaqeyna danihii guud oo gobolka inaan hormarina doorashada marka la gaaro hadii adiga dadka dhaxdiin wax ku jiro malaha waa free for all you will pass you laakiin hadda dadka la soo doortayna fursad alla siiyo dadweynaha fursad alla siiyo madaxdii soo doortayna ay uga shaqeeyaan si ay u helaan fursad ay kula xisaabtamaan ay u fiiriyaan kii ku jiray kan hadda ku jiro iyo kan ay dooran doonaan maxay ku kala duwan yihiin taa kale waxa lagu kala ogaan karaa qofkii oo fursad helay laakiin qofkii maalinta la soo doortay ilaa maalinta doorashada kala hadaas ka qaylisid oo ka daba qaylisid fursad buu helay uu dhahi doono
ana fursad liima siinin aan shaqadayda ku qabsada marka sidaas ay ku dhamaata handshake in loo soo wala imaado waa encourage gareynaynaa loo soo wala imaado wajeernimana aan u shaqeyna waxaan oran lahay odayga oo governorka Wajeer inuu u yeera county leadership forum oo dadka dhan MCS-kii madaxda dhan iyo opinion leaders oo ugu fikirna wajeernimo iyo horumarka Wajeer iyo danta Wajeer taa qof kastaba uu ka faa'iido kara shakhsiyan ka baxsan marka aniga waxaan leeyahay waqti kastaba saan hore u sheegay midnimada Wajeer way ka weyntaa danteedi midnimada Wajeer way ka muhiimsantaa dantii shakhsiyan kala marka waa inaan u fikirna wajeernimo sidaas yaan wadankii iyo dadweynaha wax ugu qaban karnaa